بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي waxaa la yiraahdaa Axmed Ciise Cabdi waxaan ku suganahay caasimadda dowladda Galmudug ee Dhuusamareeb oo deganahay waxaan kamid ahay dadka soo dhaweynaya Alaalaha Cabdiraxmaan Odawaa inuu noqdo madaxweynaha dowladda Galmudug sababtu waxay tahay awalan Cabdiraxmaan Odawaa dad waan garanaynaa fahamkiisa nin dulqaad badan oo dabeecad badan oo deganaan badan aqoonyahan dhalinyaro inuu yahay baan ku saadaalinaynaa sidaas darteed Galmudug waxay u baahan tahay maskax fariisho fiyow oo da'yar oo dhalinyar oo hore u socoto waxyaabihii bulshadu hore ay u soo martay aan ka qayb qaadan oo waxba ka ogeyn ay u baahan tahay Galmudug waxaan isleeyahay waa dhaqaaji kara Cabdiraxmaan Odawaa Galmudug maantay meesha u baahan tahay oo gaarsiin doona magacayga ah Nimco Maxamuud Faarax oo ku nool degmada Dhuusamareeb kana mid ah deegaanka Dhuusamareeb waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sharaxa Cabdiraxmaan Odawaa oo ah musharrixii koowaad oo lagu soo dhajiyo boorkiisa aad iyo aad aan soo dhaweeynaa oo yahay maadaama uu yahay nin firfircoon oo dhalinyaro oo awlna hor u dhisay Galmudug haddana dadka u firfircoon ka mid ah ma sha Allah soo dhawaa musharrax wax badan oo qaban kara maadaama markii hore Galmudug dadkii curiyay oo kamid yahay haddana madaxweyne oo musharrax u ah waxaan aaminsanahay waxyaabo badan Galmudug oo ka bacsan inuu xalin karo oo soo kordhi karo magacaygu waa Axmed Maxamed Jaamac waxaan ahay aqoonyahan aragga naafaka ah ku sugan caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb Cabdiraxmaan soo sharaxa waxaan u arkaa arrin muhiim u ah Galmudug Cabdiraxmaan waa qof aqoon buuxda u leh Galmudugtii hore isagu dhisay tan labaadna hadiiba uu yiri inaan jiheeyaan diyaar u ahay waa arrin mudan in la soo dhawo Cabdiraxmaan kasoo inuu wax bartay waa qof yaqaan dhaqanka reer Galmudug yaqaan waa qof hoggaanka markii laga hadlayo waxa lagu qiimeeyaa in uu xiiladaysiga dawacada kala mid yahay dhiiranaantana libaxa kala mid yahay Cabdiraxmaan aragti ahaanteeda waa qof intaasba aan ku garanayo waaye waxaan garan karaa oo la socdaa dulqaadkii uu u maray xilligii wasiirka arrimaha gudaha ahaa dhismihii Galmudugtii hore ee cadada lagu dhisay tanna wax badan uu yaqaan awdeed waxaan rajaynayaa inuu samata bixin doono waa qofka ay u baahan tahay waa qof wax weyn inuu ku soo kordhiyo aan filayn haddii uu soo baxo waxayna waxaan rabaa marka inaan la dardaarmo baarlamaanka samayn doona kala saari doona murashaxiinta herdamaya oo mid walba ku loolamaya arrimahan Galmudug kala saari doona Cabdiraxmaan waa inay noo soo saaraan Galmudug Cabdiraxmaan u baahan magacaygu waa Xabsa Khaliif Xirsi Xabsa yar waxaa ku suganahay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb waxaan aad ugu faraxsanahay musharax Cabdiraxmaan Odawaa in uu xilka u tartamayo madaxweynimo ee Galmudug sababtoo ah waa nin aqoonyahan waa nin xirfadaysi markii la eego musharaxiintii horeeto iyo kuwa maanta isbedeleen ayaan dareemayaa sababtoo ah waa nin markaa waxgarad oo maskaxiisa wax ku bedeli karaayo haddii nahay dhalinyaradii mase shacabka Galmudug waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada in ay inoo dooraan haldoorka inagu aan soo xulanay kaasoo ah Cabdiraxmaan Odawaa oo boqolkiiba boqol aan ku kalsoonahay waa Cabdinaasir Cali Urur waxaan ka tirsanahay ururada dhalinyarada Galmudug waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay musharax Cabdiraxmaan Odawaa aad iyo aad ayaan ugu faraxnay markii aan maqalnay
أيوة waxaan qorsheynaa inaan ku codsanno inuu isku soo sharaxo musharaxnimada madaxtinimada ee galmudug ninkaas intaan anaga ka ognahay waxa uu ka qabtay deegaanada galmudug shaqooyin badan waxaan ognahay inuu aad badan qoday waxaan ognahay inuu magaalooyin badan oo ka sameeyay solar system marka waxyaalaha uu qabto waxaa kamid ah inuu guryo ka dhisay oo ururada haweenka dara gobol lagu kale inuu ka shaqeeyay marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana waxa lagu farxo waxayna guul u tahay dadka reer galmudug oo dhan marka dadka waa kala duwan yihiin dadka marka musharaxiinta yihiin ninna waa nin bulshadu ay wato ninna waa nin isaga yimid waxaa aaminsanahay inuu ku yimid codsi ay ka codsanayaan dadka galmudug inuu is sharaxo oo in badan laga codsanayo waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay baarlamaan galmudug waxaan ka codsanaynaa waxaan insaaran mas-uuliyad culus waxay tahay waa dareemi kartaan xilliyadii hore iyo doorashooyinka ay marteen waxaan ka codsanaa in ay doortaan cabdiraxmaan dhawaay oo ah ninkii galmudug dhisay markii hore oo dhibada u aasay oo lagu yaqaano howlkarnimo inuu yahay inaysan lagu tijaabin qof aan la aqoon ninkaas waa naqaanaa waxaan ka codsanaa inay maanta u weliyaan bulshada galmudug oo ka codsatay inuu is soo sharaxo marka waxaan leenahay doorta musharaxaas magacayga waa Yunis Xaaji Cabdullaahi waxaan joogaa magaalada Dhuusamareeb dhalinyarta galmudug aan kamid ahay deegaanadan ku celiyo Dhuusamareeb runtii waa soo dhaweynaynaa waana bogaadinaynaa Cabdiraxmaan Odawa oo ah wasiirka hore arrimaha gudaha inuu hadda aad ugu soo muuqday horena u shaaciyay inuu yahay musharax dhalinyar ahaan waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay noqo kii hogaaminaha dadka galmudug magacayga waa Cabdiraxiim Xasan Cabdullaahi waxaan ku sugannahay magaalada caasimadda Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug Cabdiraxmaan Odawa hadda musharax ah runtii waa qof aad karti u leh aqoon u leh deegaanka context hadda ka jira galmudugna ka shaqayn karayo waa qof haddaan aragnay nagu cusbayn oo dadaalkiisa iyo waxyaalaha uu qadda soo qabtay hore oo qabtay inaan hadda ka warhayno runtii waa qof deegaanka wax badan hadda ka soo qabtay u malayn karno inuu haddana wax ka sii qaban karo hadduu ilaahay yiraahdo dhammaan haddaan shacabka nahay qof walbana waa soo dhaweynaynaa soo dhawow madaxweynaheeno soo